about ku saabsan English luqadda Englishka part 1 qaybta koowaad qaybtan waa qaybta koowaad marka waa mawduuc ku saabsan Englishka wuxuu yiri first ugu horeyn let me ogolow salute inaan salaamo the various society bulshada kala duwan such as sida teachers macallimiinta students ardayda parents waalidiinta guests martida and honorable people iyo dadka kale ee sharafta leh those kuwaasoo participated kasoo qayb galay this ceremony xafladan after that intaa kadib anigu waxaan doonayaa to suggest inaan kasoo jeediyo in front of you hortiina a lecture mawduuc concerns quseeya the importance ahmiyadda of English language ee luqadda Englishka as we perceive sida aan ognahay whole of us dhammaanteen Englishku is an international language waa luqad caalami ah that taasoo whole world adduunkoo dhan recognized laga aqoonsaday waayahay haddaba waxaan doonayaa inaan hal mar dul maro akhriska kadibna aan galno macnaha erayada waayahay first let me salute the various society such as teachers, students, parents, guests, and honorable people thus participated in the ceremony. After that, I wanted to suggest in front of you a lecture concerns the importance of English language as we perceive whole of us English is an international language that whole world recognizes. waayahay haddana waxaynu gelaynaa macnaha erayada ayaynu geli doonaa erayga ugu horeeya waxa weeye salute salaamid oo waxaa la macno ah greet ayaa la macno salaamid various kala duwan waxaa la macno tahay different society ama society labada waa akhrin kartaa bulsho teachers macallimiin students arday waxa kale oo la macnaa peoples waxa weyn iyadana arday parents waalidiin guests marti ceremony xaflad participate ka qaybgelid lecture mawduuc ogow lecture iyo topic labaduba waa mawduuc waana isku macno perceive garasho waxaa la macno ah now iyo realize garasho whole dhammaan recognized aqoonsasho oo waxaa la macno ah identify in front of horay international caalami honorable sharaf leh la soco qaybta labaad ee topica ku saabsan Englishka